ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تغهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. خير الله سيسيد جزاك الله خير. waxaan intaan xafladda u gudgelin bilowgeeda oo inoo furi doono Sheekh Axmed Nuur, waxaan rabaa marka hore inaan halkan dhowr waxyaalood ka iraahdo. midda koowaad waa xafladda amaanta isugu nimid ama soo dhaweynta aan isugu nimid oo aad saad ogtihiin ah soo dhaweynta walaasheen xildhibaanad qaran Ra'iisul Qorane. waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo aniga xasan ahaan inta badan waxaan iska ilaaliyaa inaan xafladaha siyaasadda iyo waxa aan horboodo qof aanan aqoon ajandihiisa siyaasadeed hadduu yahay mid gudaha rabo inuu xil ka qabto waddankan aan joogno ama waddankiiba. waxaan jeclaa marka hore qofka inaan ogaado bal ma yahay qof u qalma waqtigaada iyo inaad waqti geliso. markii ugu horreysay oo la igu yiri xildhibaanada imaanaysa dadka waxaan weydiiyey xildhibaanada si shakhsiyan adigu u taqaan anigu ma aqaanay bal iga waran. dhowrka waxyaabood oo ii sheegay runtii aad ayaan ugu bogay. marka waxaan rabaa dhowr waxyaabood oo ka mid ah waxyaabaha la ii sheegay oo qaarkoodna aan runtii intaan xildhibaanada ay noqonay ordaysaba aan maqlay in halkan ka sheego. waxaa ka mid ah horta waxaan rabaa xildhibaanada qaranka ee ku jira dowladda federaalka 3 qaybood ayaa lagu qaybiyey. qaybta koowaad waa qayb runtii xafiiska ra-iisul wasaaraha kan madaxweynaha iyo kan guddoomiyaha baarlamaankaba mar kasta taga oo ka dhaadhiciya dadka ay matalaan baahidooda iyo baahida guud ee qaran oo aan fadhiisan, iyo kuwo intaas ay u suurageli weyday oo ku dadaala inay mikrofoonka taagnaadaan oo ay codkooda ku muujiyaan u gargaaridda shacabka guud ahaan gaar ahaan constitution ay matalaan, iyo kuwo kale oo lagu yiriba sidaan maqlay ilaa ay 3 teeram ay ku jiraan xildhibaanada laakiin wali xataa awood uma yeelan ee xataa mikrofoonka qosan ay ku hadlaan. marka xildhibaanadu waxay ku jirtaa kuwa hore oo codkoodana ku taageera shacabka mar kastana ka dhaadhiciya fikirkooda waxaan kaloo maqlay oo waliba qofka fadhiyo anigu sheegan uu sheegay hadda ka hor iyadoo ay tahay 12 ku soo socotaa weynimo inay tiri waxaan u socdaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo waan tagaya waan ognahay Muqdisho nabadgelyo xumada ka jirta waqtiga. marka wuxuu weydiiyay sababta ay xafiiska ra-iisul wasaaraha waqtiga u aadayso waxay ku tiri wiil dhalinyaro ah baahidiisa ayaan doonaya inaan kala soo hadlo. waliba wiilka dhalinyarada ah waxaan markaa 2017 Muqdisho tagay September ayaa casho ka qayb galay madaxweynaha uu ku sameeyay dalka Soomaaliya. marka maadaama madaxweynaha qaranku uu ahaa aniga martidan ka mid ah meesha iska fadhiyay indhuhu ugu dhuftay intuu istaago wuxuu yiri ninkaas waxaan sunni ma ah ra'iisatul aad baan u jeclahay meesha dhan buu ka yiri. marka waxaan rajeynayaa adiguna insha Allah taala inaad saas oo kale dhigo oo ku filayo inaad xafladda waa noo furanta insha Allah. waxaan rabaa Sheekh Axmed Nuur soo dhaweeyo si uu noo xasuusiyo kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala. Sheekh Axmed soo dhaweeyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضنيان يمروين كلمة علماء الله مرينا حجرة سياسيين تكلياس كلامية مضنيان يمروين سؤال هذا فرحت بيت هاي أنا ومجيء إنك الله باسمكم جميعا ما يركي تقويل لنا وجوه مقالة عندنا هاي مسؤولين طيب وظفريان lasoo doortay ofishaalka inay yiraahdo kulligiin magacyadiina aan kala sheegaynin soo wada dhawaada. waxaan afkiina ku soo dhaweyn walaasheen Ra'iisul Qorane.
raysal anigu sidaas uu sheegay xasan sunni sheegay dad maana soo wareysaninaya waxaan dhageystay hadalladeeda markii la raysal baa imaan ayaan waxaan galay youtube-ka waxaana damcay inaan ogaado man hiya waa tuma raysal inaan halkaa ka soo ogaado horta kow waxaa iga hortimid magaceeda raysal baan dhaafi kari waay marka anigoo magacii waxoogaa ku wareersan oo dhahaya waa maxay raysal baa waxaan arkay oday ashraaf oo Columbus joogo oo ku wareeray hortay oo dhahaya laba qof baan maanta u tagay raysal ma taqaanaan weligeeya maana maqala leeyahay haddana qolo kale waxaan u tagay Soomaalida geeleyda ahayd waxaan ma maqashay raysal waxaan dhahay weligeeya maana maqal marka raysal odayga horta suuqaaga codsaday caawa fasalka raysal aan ka rabnaa insha Allah waxaan rabaa inaan ku sheego you are special baa tahay sida magacaagu uu yahay special baa laga soo intaa kadib raysal horey baan u arkay baarlamaanka runtii siyaasadda Soomaaliya iyo waxaan ka warqabaa marka baarlamaanka iyo doodahoodana waa arkaa marar badan baan khayr Allah siiyo iyadoo qadayaadka Soomaalida iyo umurta muhiimka ka hadlay baan la kulmay waxa kale oon ogaaday markaan dhageystay hadalladeedii iyo hore iyo dadkii ka hadlayay inay tahay qof samafala ah intayna noqonin siyaasadda ka hor wax badanna ay ka qabatay gobolka iyo magaalada gaar ahaan ay degan tahay hadday noqoto caafimaad hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto kaabayaasha dadku u baahan yahay oo dhan qof ganacsada oo runtii dadka wax badan u soo qabtay inay tahay marka waad ku mahadsantahay insha Allah ta'ala waxaa kale oon min khilaali kalaami hadalkeedii ka helay khudbadii ay bixisay mid ka mid ah arrinaan aada u jeclaystay arrintaasna hadda ka hor Cabdulwaaxid Goonjeex ninkaas oo runtii nin Soomaaliyeeda halkaan noogu yimid magaalada baan subax la quraacnay aniga iyo xasan sunni uu noo sheekeeyey markaasaa wuxuu yidhi Sheekh Axmedow Obama xilligaa ka ahaa waddanka madaxweyne wuxuu yidhi haddii diyaaradda Obama ee khaaska ah ilmahayga la igu soo qaado oo la yidhahdo Maraykan baa lagu keeni maana keeneenbu maxaa jira ku wuxuu yidhi waxaan rabaa ilmahaygu bakaarahay degan yihiin iyaga oo Soomaali ah oo muslima inaan ka dhintaan rabaa waa laba sifo oo cajiib badan iyagoo Soomaali ah oo muslima inaan ka dhintaan rabaa waan ogaaday inay Soomaali yihiin muslimiin yihiin raysal waraysi ay bixisay baa waxaan ka dhageystay iyadoo dhahaysa 50 baasaboor haddii la isiiyo oo waddankan ah maana qaateen waddamada dibadda ah 50 baasaboor meesha ogtihiin in hal baasaboor oo waddamada dibadda ah Yurub iyo Maraykan 50 kun lagu gadanayo dadka qaar ay ku iibsadaan iyadoo waxay tiri aniga 50 xabba haddii laga siin lahaa dibadda ma qaatay waxay weligeedna waxaan fili kama soo bixin waddankii ay ku dhalatay ay wax ku baratay bay ummadana wax ku qabatay waxaan rabaa inaan kula mar labaad soo dhawow Seattle Washington ku soo dhawow weliba meelaha hostel ku jirtaa intaa kadib waxaan rabaa inaan hal dardaaran aan idhaahdo hal kelima rabaa inaan raysal dhaho hal kelimana Seattle insha Allah horta Seattle xasan baa inaga warbixiyay hadda xasan wixii aad nagu sheegtay hadii la inaga waayo ceeb bay nagu tahay gabadhan soo dhaweeyay insha Allah ninka wiil baa yiri baa leeyahay aabbo wiilka caanaha loo buuxiyo oo markaan waxaan dhahayaa gabadha soo dhaweeya si fiican loo soo dhaweeyo insha Allah ta'ala intaas waa Seattle raysal waxaan leeyahay baarlamaanka iyo meelaha la joogo horta inaad tagtaan oo codkii Soomaali oo dhan matashaan oo Soomaali oo maanta adduunka oo dhan ku fursan 20 milyan ka badan aad idinkoo inta 300 iyo aad matashaan waa Ilaahay wuxuu idin doortay ikhtiyaar baad meesha ku tagteen awood kale kuma yiraahdo dadkaas dibadda jira iyo gudaha jooga oo dhanna mas'uul idinka ka qowlka aad dhahdaan iyo codkiina iyo meeshaad marinaysaan baad mas'uul wati ama Allahina waa lagu xilin weydiin waana dhamaanaysaayo waa loo kala dambeynaya qofba xilligu jooga laakiin waxaa la yiraahdaa maxaa ka haraya hal mowqif oo sameeyay oo sameyseen baad wax ku bedeli kartaa
hal gabar ayaa waxay bedeli kartaa dhammaan fikirka meesha ka jira oo dhan bay hal mar dhinac u jeedin kartaa. marka u noolaada kow inaad horta marka koowaad alle aad raalli gelisaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku xidhnaataan. markaad alle raalli gelisaan baa wax idiin hagaagaya oo salaadaha marka la gaadho, markay diin meeshu tagto, markay noqoto kelimad inaad diinta waa ogahay qaraaraad badan iyo waxyaabo badan baa laydin soo marinaya oo la doonayaa in la ansixiyo. marka ilaahay uu heelaya oo diinta uu heelaya oo dalka uu heelaya oo dadkiina uu heelaya, markaasaad gaaraysaan inaad idinkuna wax noqotaan dikrina idinka haro. adduunka waxaa ugu fiican qofku wuu dhimanayaa laakiin dikri ma ka haraya. afar raad maxaa lagu xusuusan doonaa oo dhowaan lagu dhihi doonaa. marka wax laydinku xusuusto inuu idinka haro baan ilaahay subxaana wa tacaala idinku baryayaa. adigana si gaara baan kuu soo dhaweynaynaa. waa mahadsantiin dhammaan. jazaakum allahu khayr. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. خير الله سيو جزاك الله خير شيخ أحمد نور. شيخ أحمد نور وإمامك الجود مقالة أما جود أهم واشنطن كأهان مساجد كان أبوين أبو بكر إسلامي سنتر. مركا أنتينا عن هرب وعن أما عن أقوالين سأقول إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ أحمد نور. waxaan rabaa marka hore inaan martida aan Soomaaliya ku hadlin aan isdaafino si ay maaragtay waqti badan laga yaabo inay fadhiyeen ayaga marka hore isdaafideena. And if there's somebody who doesn't speak Somali sitting next to you, please go ahead and help them and translate, because the majority of the people are here, they speak Somali, so the organizers. Okay, thank you Abdul. marka insha Allah waan ku sii soconaynaa. waxaan rabaa marka hore inaan siiyo Cabdiweli oo xafladda qabanqaabiyaha ahaa. Cabdul Salow. Cabdiweli asaa inta badan waa taqaanaa waa ku soo mahadsanid walaalkii xasuusuni. alxamdulilah masala farxad bay tahay aniga koodii intaana ka horumarin. waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahadceliyo dhammaan shacabweynaha ajiibay xafladan inay kasoo qayb galaan. inta aanan hadalkayga warkoobayntaan u gelin, waxaan rabaa in aan horta xusno martida sharafta leh oo aan casuunnay oo ka kala socdo degmooyinka hoose sida magaalada Takwila iyo magaalada Seatac. waxaa marka koowaad nala fadhiyo saaxiibkay, marna walaalkay, marna ah xubin xildhibaan degmada Seatac oo runtii aan dhihi karo cawda camal oo kala weeyadeen waa deked. maxamed cigaal nala fadhiyo. maxamed cigaal waxaa ag fadhiyo Kate Kruller oo ayadana ah xildhibaan degmada hoose ee Takwila ah, hadda u tartamayso duqa magaalada Takwila. Kate waxaa kaloo nala joogo Tam oo asna aan saaxiib nahay, asna footballka ila jecel, council memberna ka ah muxuu ahaa degmada Takwila, asna u tartamayo mayorka ama duqa magaalada Takwila. martiyaal kale waa nala joogaan insha Allah taqaanaan, ayagaa noo sheegi doona insha Allah. intaas kadib waxaan rabaa inaan xuso walaalihii xafladda keligay loo soo bandhigay. guji team ayaa ka mid ahaa. dadku waa badan yihiin laakiin waxaan dad khaasaan rabaa runtii inaan magacooda sheego waayo waa la kala shaqo badan yahay. waxaan rabaa ku hormaro hooyooyinkay ama habeerahey Daxawa Shukri iyo Sacdiye Calalle oo runtii arrintan waxaan rabaa saaxiibadeen ugu horeeyo Maxamed Xaashi, adeerkii Cali Yuube, Maxamed Samatar, Cabdifataax Shardoon iyo walaalkii Axmed Shuure Fayooki iyo dhammaan dadka ka qayb qaatay. intaas kadib hadal waa noo dhiman yahay. aniga runtii inaan ka hadlaan rabay walaashay xildhibaanadii ra'iisul qorane, laakiin maxamed waa u daynayaa insha Allah ayada arrinkaas leh. laakiin hal wax baan rabaa inaan halkaa ka sheego.
وكرسي عنيق يوم متشوي كرسي هو يقارنه توب 053 شيخ منور بقى اسفورجين ريو مركي حفلة هو يرد ويري عبد الولي ويا من ليس قرانه سواحة كرسي فهد ياسين كذا كعت كعباير شخص واحد شغلك وقفتك انك ان شاء الله سو دواده اليها اساسا انه فرد حمد حسن عبد الولي هذا باسين وانا شق بدن marka la gacmo isku saar insha Allah waxaan kaloo rabaa inaan ku daro Cabdi Weli kaligiis ma matashay aniga iyo Cabdi Weli wayna matashay waxaan rabaa inaan hadda soo dhaweeyo sita council member Maxamed Cigaal oo ah nagu culus daana raysiyatan هذا الفرعون كلية تأكيد الفاح أنا يا سيدو السلام عليكم اوكي يعني بسير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين والسلامية waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka oo aan midda ugu qiimo badan wax bini aadamka isku salaamo dadka caawa halkaa jooga intooda badan way iswaji garanaynaa laakiin waxaan rabaa inaan isbaro xildhibaanada iyo dhowr qof oo aan garanayn aniga waxaa la yidhahdaa Maxamed Cigaal waxaan ka mid ah odayaasha magaalada xildhibaan golaha deegaanka magaaladan ku xigto sii taag la yidhaahdo laga doortaan runtii in yar baan soo qortay oo aan rabay inaan ka hadlo laakiin idinkii baa qaatay ma fahanti marka waxaan rabaa inaan dhaho ra'iisul soo dhawo walaal aniga uguna cusbo magacyo kala soo arkayo ma fahanti sheekh Axmed Suleeya waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr arrimood oo ah arrinta Seattle anigu waddanka waxaan joogay 32 sano أنا سديت سنة كذا واي. ما برايس قدر كلمة. ما قعدت صدقني الله أصلا وحن كنا ولا هذا قالوا لي بدل كنتي وحن قرن كرا وأنا كرسنين وأنا بيان عين حقيقيا فانا عن عين. حتى فانا جب ملفتير. يا إني تهيسيات الميراها هو أحسن ويكونوا شيء سومالي. صح شيء سومالي صح. ما فهمت مركا لكن وحن عام كنا هيصير شيء شيء أحمد نور dadku noo yimaado si fiican oo soo dhaweynaa waana marxabeynaa anagoo wada jirno wada soconaa qabiil aan ahayn oo aan dhoomanayno magaciiseen baan u tagnaa ma faham gabdha noo imaan laakiin rag baa noo yimid dadka madaxda Soomaalida noo yimaadana Soomaaliya waliba madaxweyne ka noqdaa ma arkin baa soo waxay xidhiidhiyo قول أنا شيء الصومالي ذا أبغى رأي إن المدحونة كانوا قلنا محمد ودي ما أنا جاي وحنا كل العهد هذا الودي وأنا هذا العقل ودي يكون دي أنا تصاري رجعنا والله يطلع ما فهمت أنا وأخوه درينا مركا لا يحكي شيء إن شاء الله هذا هنكر وجرو هنكر ضد كذا كان ما حاجة عن مليين ما فهمت سياسة الباتميد دعاء سنوا وضعتها أمانتها تنادى بدل له نوالعش شيء وأنا كام مقطع حسيك إشرفته ولا مركا أرنتها سنا waxaan rabaa inaan maaragta maalin weyn waxaan rabaa kalmadina ka dhahaa arrinta Soomaalida maalin waxa soo wacay meeyarka magaalada wuxuu yiri Maxamedow 11ka November waa maalinta Veteran-iga ah wadankan waxaan rabaa inaad ka hadashid xaflad magaalada lagu qabanayo oo ciidamada ah waxaan ku yirinayo 11ka waa okay waa ka hadlayo waxa dhimale marka أنا أسمع هذا الكلام تشرح تكنو سيدي قال بيصد يعني سو شروع باكر الله مروح أنا عاصم إيميل بيصدرين هو لا يهرب سيدي كهيو سيدي ملاك كي أسوق فيريا كلمة تقوله رئيسه هاي وحلاقي يا أنا ليا بنتين الصومالية أو إذا كراها ليا سكرفايس كي دبتي دقار كسوق الشين إلى النبي آدم الصومالية أنا مريكان بان هاي قرما صومالي نقول صدقني لبس أنا جوجاي أنا كورما Soomaali نقول
anigii baa la doortay wiilal nabluuga la ay codkooga siiyeen goormaha Soomaali noqday macnaheedu waxa weeyaan ogaada meel walba aad joogtid iyo darajo kasta aad qaadida Soomaali waa meel walba aad joogtid iyo darajo walba aad gaadid Soomaali waa Soomaalinimadii waa lagu ciyaariyaa Soomaalinimadii waa lagu ciyaariyaa waxaan rabaa oo ka codsanayaa fariidad baa tahay xilsane arwaa arkay Allah hawada شكرا ما بشيء. إلى ودك كل سؤال كذا والبهاش عن عيارتك داعي. ما بانك بهاش عن إنسان ما قرأت والله عيدا كقرن الصومالية هذا قطر عيدا كقرن الصومالية هذا أبو دبي عيدا سبع قرن عيدا الصومالي هو يلا كنا وطن كلام. هاي توحى. مركا أنا تاس ودردارا ضغط الصومالي ده وهل كان شروقة كنت نول بقلبي يسكت كذا. ما بعد أنا وحنا حافظها يا كمان كنبي أنا اللي جمع حافظ وينا الله كتير كأنك ما قشر برجع حافظك تقال صباحية بعشا يرتا يعني صباحية إن أول السودو القلادي معرفة حفلة قبل قابل السنة هذه بشرف عسي شرف تربنا عن وعينا إن شاء الله أنا تأخذ البيت تخلى ورئيس خير قلب السلام عليكم محمد علي عقال هذا ما صرتها ولكن thank you very much and waxaan rabaa horta inaan xildhibaanada xasuusiyo waxaa la ii sheegay hadda ka hor in magaaladan ay yimaadeen ilaa iyo 5 ruux oo u tartamayso xilal kala duwan Soomaaliya marka qaar ka mid ah waa guuleysteen wasaare noqdeen kulligood waa guuleysteen dabcan marka adiguna haddaad meel ugu socotid waxbaa isku yaraan weelka weynaysa insha Allah ilaa madaxweynaha insha Allah marka waxaan rabaa hadda inaan martida islaafino marka hore aan u yeero Kate City Council member Takwilla horta inay noqoto meel I don't know that I'll be as comical as the other council member from CTAC was, but I want to welcome you to Takwilla. It's very exciting to have you here. I know that you had a trip that went through other cities and you managed to figure out how to fit this in, and it has great meaning to everyone here, everybody in the Somali community, everybody in Takwilla, and we are greatly honored that you are here tonight. I also want to extend the same warm welcome to everyone out in the audience because there's people here from Seattle and Everett and other cities, and I'm just going to say Assalamu alaikum. Thank you. Thank you, Kate. Thanks for waiting patiently. Thank you so much. And sidoo kale waxaan rabaa inuu yeero hadda Thomas McLeod, who is Takwilla mayor, and he is candidate for the Democrat. So Thank you for letting me be here with you this evening. I want to welcome all of you to the city of Takwilla. I join my fellow council member Kate Cruller to welcome you to our city. We are honored that you are here. We are honored that you would travel from far and wide and stop in Takwilla. So we pray that your travels are safe. We pray that they are peaceful and that you accomplish what you hope to accomplish. But from the city of Takwilla to all of you that traveled, may you have safe travels coming and going, and thank you for being here and blessing us with your presence. thank you, Mr. Thomas, Takwilla Mayor. waxaan rabaa hadda inaan ku xijiyo ima muuqdo cawaale ma jooga cawaal farax okay waxaan rabaa maadaama inta badan dadka hadda hadlaan iyo ugu badnaayeen rag ugu badnaayeen gabdhahan aan ognahay inay yihiin laf dhabarkii bulshada Soomaaliyeed ama gudaha ama dalkaba
inaan ku bilaabnana waan rabi lahayn laakiin naga raalli ahaada waxaan rabaa inaan u yeero hadda Nafiisa Samatar oo matali doonta ururka sirka oo aan ka codsanayno inay stage-ka soo fuusho si ay usoo dhaweyso xildhibaanada kalimadeedana ay u qaato insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي waxaa idinku salaamay salaamta islaamka waxaan rabaa inaan walaashay Raysal Qorane ilaahda ku soo dhawow Washington runtii farxad weyn bay noo ahayd inaan gabar ay nooga soo baxno dowladda dhexe kas anaga mar walba waxaan u ololeynaa gabdhaha inaan badino kas waa gabdhaha waa dadka kaliya intii loo tago la dhihi karo hawshan baa jirtee oo ayaga hurdo la soo toosin karo ragga muxamediin Raysal waa xasuustaa markaa xamar tagay in yaraan dowladda la soo shaqeeyay laakiin markii dambe oon dhinaca u leexda ganacsatada magaaladii ugu horeysay ee laga aqbalo ururkeena wuxuu ahaa Caabudwaaq waxaa aad iyo aad gudoomiyaasha ururka ka mid ah gabar xildhibaanada oo la yiraahdo Firdowsi Ciid oo caawan jeclahay inay codkayga gaaro aad iyo aad shaqo badan oo isugu tagda magaalada Cadaado muddana ka wada shaqeynayna intaan gobolada kala tegin gobolkii ugu horeeyay aan xoog u saarayn wuxuu ahaa Galmudug laakiin Firdowsi waxaa noo noqotay xidig waxayna aad ugu faraxsaneed inay Raysal ay timaado dowladda dhexe si garab uga noqoto ururka siba waa urur ganacsi ah oo la rabo in kor loogu qaado ganacsatada Soomaaliyeed si ay isu bahaystaan meel walba ay joogaan marka ururka abaabulay gabdho aad iyo aad u qiimo badan oo xoog badan aan la hadlay gobol walba magaalada Boosaaso Cadaadan tagay iyo meelo kale oo lamid ah sida Beledweyne oo kale gabdhaha meesha ugu firfircoon labadaas gobol ay ahaayeen marka waa mahadsantihiin waxaan rabaa oo kaliya hadda inaan kusoo gabagabeeyo codkaaga sida uu u dheeryahay magacaaga u dheeryahay aqligaaga u dheeryahay magacaaga ayaan laga hadlaynin taagnow meesha aad taagantahay ilaa kusoo dhawo Washington aad u mahadsantahay walaashay Nafisa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo waqtiga aad siisay walaashay Raysal waxaan rabaa hadda inaan u yeero Cali Sheego oo aan rabo inuu dhowr daqiiqo qaato isna uu soo dhaweynta Raysal ka qayb qaato maadaama uu ka mid yahay odayaasha rugcadaaya ee Raysal Atala si culus oo soo dhaweynta insha Allah Cali Sheego السلام عليكم. كسر دو سيارة سال وش شيء ومقالة عاد ونعكسن بركيسن شيخ أحمد الدعية. قف كسر على الدعية. لكن قف كسر بقول على المقالة ديتو ومقالة بركيسن ومقالة أو سيدا دبا قد كدوا المقالوين من الصورة إسيان إيام كولومبوس. ما حد عدد كانت مقالة ديتو يعني قف ووري دس ووري هاي. 1991 kaas yaani maaday marka waagaasito group wave u wareysay waxa ku jiray laba dhalinyaro oo xijirka soo jir ah waagaasito labada dhahay Cabdi Shuk iyo Cabdi kale marka Cabdi Weli Cabdi Shakuur adna ma waa weyn dhaqdeen Cabdi Weli waa biyabsanahay waxyaalada soo baxday aniga waxaan ka dhigay marka iyaga waagaasito 6th grade ahayd iyo 9th grade ahayd marka waqti badan ayaad soo gelinay in magaalada neeto dadkii isku mid noqdaan walaal noqdaan soo koraan horumariyaan aadaan ugu faraxsanahay in generationkaasito oo 93 imaaday ay noqdeen dad successful oo maxay ahayd baton meesha kasii wado marka waxyaalo kale la sheegaya laakiin haddii Soomaali loo noqdo dadka inta badan ma og meelo kale lagu tiriyaa laakiin cilbura ku dhashay
قلبي وكسو جيدا إنك لو جيت تدي حاجة كنت قلت لها المرأة ولا قلت ريال لكن صوت مركا سيا هور لو شيء وعاد بقوسو دبينا لأن وقت كوكو دارين بدونين مقالة بركيسن قف كسي بعد ولود عيا هذه بيش وباهي بين جاران بعد ما سنت على شيء وما سيها عاو أقول رسمه البورية رجل ده أصلا أنا أقولها هذا ما سنتها ولكن خير الله كسيو مرتي بدنا إنه جوكتو waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo martida gadaal ka timid waxaan si qumaati u eegayaa erinta laga soo galaya dad badan baa ii muuqda hadda soo dhawaanaya soo dhawaada dhammaantiin caawa waxaan isugu nimid soo dhaweynta walaashin Raysal Qorane oo ah xildhibaanad qaran oo inooga timid waddanka Soomaaliya oo booqasho kooban noogu timid marka soo dhaweynteeda halkan u joognaa dhammaanteen waan waajib diini ah qofka in la soo dhaweeyo hadduu yahay xil hayo iyo haddaanu xil hayba waa qof gurigaada kugu yimid marka mar kale Raysal soo dhawow walaashay aad baan u mahadsan tahay inaan qiimaysay oo aan ognahay Seattle iyo Columbus laga yaabo inaad ka timid waa dhowr iyo toban saacadood ku dhawaad maadaama transit ku jiro inta aad soo socoto waa kaaga mahadcelina waxaan rabaa inaan hadda kalimad siiyo nin oday ah oo magaaladan aad looga yaqaano oo annaga aan ugu yeerno walaalkayow aniga Sheekh Axmed kulley walaalkay magacaas aan u naqaanaa Cali Roble rabacdaa magaalada qiimo ku leh gaar ahaan xagga waxbarashada ubadkeena aad iyo aad u garab taagan waanada iyo wacyigelinta Cali Roble soo dhow walaalkay waa maasanta assalaamu calaykum marka hore aad iyo aad waxaan u faraxsanahay gabadhan walaasheen inaan soo dhaweyno magaaladeena in badan wanaag baa laga sheegay wanaagga laga sheegay aan kuu sheegay marka wanaagga wuxuu ka yimid ummad waxaanu nahay oo su qoomiyada oo Soomaalida jecel ma kala qaybsan 4.5 ma qabno anaga dadka meesha jooga kulli waa qoomiyada Soomaalida kulli tan kale waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto waxtarka tayada gabdhaha Soomaaliyeed ee Seattle أنا كان واحد جرتي وهاي مكان تنمي واحد جرى ورص صومالي وحاو قام يجري لح وحنا من الكوميونتي وحاو قام يجري ويلر رك صومالي رجع صومالي وقام يجري كنتي شقوين بدوي قبته لكن حفيظة مركز نقطه وحاجر جرتي ضدك إن حاجة قرب الوجود كنتي تي وكبحنا runtii maanta waxaa jirto aan markaan dhahayo tayada haweenka Soomaaliyeed ee Seattle waxay keenaan aan rabaa inaan ka hadlo runtii gabdhahaas waxaa kamid ah Xamdi Cabdulle oo ah oo ka shaqeysa Africa Community Housing Development Zara Farax Somali Community Munira East Africa Community Farhiya Somali Safe Task Force Zamzam Mohammed Voice of America. Voice of America. runtii gabdhahaas waxay qabteen howlo fiican oo runtii tayo fiican leh dhammaantood waxay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada waxayna ku fiican yihiin gabdhaha Soomaaliyeed oo hoggaanka noo haya tayada leh xafiiska tu'aatiga ee qof Soomaali ee tagto ma la weydiinaa qabiilkiisa ma la dhahayo maxaarta waxay dhahayaan maxaarta maxaa u baahan tahay waana siinayaan marka taas maxaa ogaataa in ay gabdhaha Soomaaliyeed taas ay jiraan marka waxaan rabaa hal dardaaran inaan ku siiyaan rabaa in Soomaalikaasi inaan gaarsiiso madaxweynaha iyo dadka dowladda Soomaaliyeed maadaama ay siyaali gabdhihii saas wanaag u sameeyeen ay shan ay yihiin ay hogaamiyaal Soomaali markaa fiirsid xildhibaanadooda waxaa arkaysaa gabdhaha ugu yaryihiin tayo xumadan waxaa keenaa Soomaalida hore inta noo yimideen komunitaas dadka ahay sidoo kale waa qabiil waxaas ka shaqeeyaan marka waxaan u baahanahay inaad naga gaarsiisid example ahaan usoo qaadatid magaalada Seattle haweenka Soomaaliyeed qaybta ay ka qabteen iyo wanaagga ay sameeyeen inaad naga gaarsiisid taasoo aan u baahanahay gabdhaha Soomaaliyeed xilka ay qaba xildhibaanada in lagu badiyo 130 waa mahadsantahay
الرولة هذا وصلتهاي ترداركيisa hadaad qaadan weydo waa waxbaa ka dhalan doona marka tardaarankiisa si goon aan u qortan jeclaan lahayd aada u mahadsan tahay dadka hadlaayaan kusii soconaa iyadoo oo xildhibaanadan ay noqon doonto qofka ugu dambeeya oo noo soo gebagabayn doona insha allah noogana warrami doonta xaaladda uu waddanka hadda ku sugan yahay inta badan annaga wararka waxaan ka qaadanaa social media hadda websaydaha la geli jiray websaydaha waa laga tegay social mediahina wuxuu noqday meel hayaacda ah macnaha waxaa laga yaabaa warbixin in inta la soo geliyo aad run u qaadatid hadhowna ay been noqoto laakiin maanta waxaa inala jooga macaawa waxaa inala jooga xildhibaanada oo inooga warrami doonta xaalka ugu dambeeya ee waddanka uu marayo marka intiina meesha joogto waxaan u malaynayaa nasiib gooni aad leedihiin intiina daawan doonta ama daawanaysana sidoo kale laakiin dad badan waxaa jira anigu si gooni ah aan oola hadlay inay yimaadaan xafladdan laakiin duruufo shakhsiyaed ee qabsada imaan waayey dadkaasna aniga oo matalaya waxaan rabaa inaan magacooda aan kugu soo dhaweeyo insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan u yeero hadda adeer cabdiqaadir jaangeli oo inoo imaan doona insha allah oday soomaaliyeed qaranka wax badan usoo shaqeeyey in loo istaagaan jeclaan lahayn waa astaan qaran dabcan gacmahii miyaa intaan maxaa dhacay waxba u maqlnay aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddee ma sugayn in saas laygu masxaradayo oo laygu sacabilayo ma sugayn odayaashu markay weynaadaan ninka la yidhaaho maxamed baa waxaan ku yiri adeer waxaan kugu qorahayaa hadalka markaasaa waxaan idhi warmee adeer ma hadli kara igada hadda waa suu yiri me waxaan u baahannahay nin garcad oo timcad inuu meesha ka hadlo calaa kulli xaal waxaan soo dhaweynahayaa ra-iisal oranay dadka kale oo xafladda ka soo qayb galana aada iyo aad baan ayagana u soo dhaweynayaa ina gabdhaha iyo masxarada hayana waad ku mahadsantihiin horta sidii sheekh axmed nuur sheegay aniguna waa google gareeyey markay magaaladaba timidba waa google gareeyey wax badan baana ka ogaaday oo dee soomaalida waxaa dhihi jirtay qof haddaad rabtid inaad baratay ama jid la maramid ama jidiin la qaybso marka hadda macallin google baa wuxuu noo yahay hadda jidkii aada la maraysay qofka oo aada iyo aada baan ugu farxay sida ra-iisal ay waxu qabadkeeda iyo meelaha iyo sida xataa loo soo dhaweeyey baad ka garanaysaa caabud waa xataa waa fiiriyey sida loogu soo dhaweynayay ya maha magaalooyinkan Seattle iyo Minnesota iyo maaha keliya caabud waa xataa waa fiiriyey oo sideedana dadku inuu han yeesho oo uu madax noqdo waa wax si ka cadin siiba siyaasiyiinta dadka kale
appointiga ah oo dee la magacaabo oo loo magacaabo jago loo magacaabo waa gooni laakiin dadka politicianka oo hanluhu waxay halkaas u yeeshaan dhowr wax qofka ugu fiican waxaa weeye waxaa jira inuu wax ka bedelo waxaa markaas carrada ka socda siiba wixii dhib ah inuu qofkaas wax ka bedelo oo ummaddiisa u bedelo waxaas ka wanaagsan marka anigu waxaan kula dardaarmayaa ra-iisal horeyna waxaa uga shaqayn jirtay arrimahaas social life-ka ah oo dee waxbarashada iyo caafimaadka iyo sida aan youtube-ka ka arkay marka haddana waxaan kula sii dardaarmahayaa waxaa jira oo dhibta jirta noocay tahayba inaad wax ka bedesho isku daydin inaad wax ka bedesho ayaan kugula dardaarmayaa adiga iyo wixii asxaabtaada ah oo aad la kaashan kartid sidaas iyo soo dhaweyn wacan ilaahayna ha ku gaarsiiyo loo mar haddii la yiri garku day garcab waxaa daba taalla ducaa daba taalla adoo caafimaad iyo farxad leh ilaahay ha ku gaarsiiyo dhulkii aad iyo aad baa mahadsantiin adeer waa mahadsan tahay adeer jaangil aada u mahadsan yahay caawa waxaa soo xasuusteen dee gacaankii baa soo xasuusteen marxaladda iyo soo dhaweynta waliba si gooni ah gabdhuhu ugu mahad celiyo waxaan u malaynayaa ragga waa yaa gacaanka waa iloobeen marka waxaan inaga maqan ninkii baashada tumaayey waxaa lagu daari lahaa maanta waa maalin weyne maanta marka naga raalli ho adeer macaan insha allah waxaan rabaa inaan hadda aan ku xijiyo oo noo soo dhaweeyo maama mako oo aan jeclaan inay ka mid noqoto dadka ugu horeeyo hadlo laakiin maadaama brotocoolka dhowr waxay ka horreeyeen aan ka raaligelinayno si fiican usoo dhaweeyo maamada oo qof qiimo kula bulshada soomaaliyeed guud ahaan Seattle gaar ahaan markaa soo dhawow maama insha allah waan kaa mahadcelinayna inaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ددوينها شرفت لي اسكوي مسؤولينتا حلبان رئيس القرآن أشكر آد بعد ما تنتهي قارها وحنم هاد علينا يا قدوي قبل قابضة هول كان قروح البدن أنت ددوينك سكو كان يري وحن كليته أون ولا شيء هاي سولو ركبا نوي ما جري بالقبل هموت ماتو horaan loo yiraahday intii meesha timaado waa guulaysan jirtay iyaduna waxaan ilaahay u rajaynaynaa waxa aan farayno intay naga qaaday inay ku guulaysato marka ugu horeysa waxaan leeyahay oon halkaan mahad celin iyo ooga dirayaa ama aan fariin kaaga dirayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida uu ugu guulaystay ama uu la dagaalamay al-shabaab iyo sida uu ikeen خاتوما استي ومقعرات وبلينا waxaan leenahay oo ku garab taaganahay nabadda Soomaaliya iyo wada jirkeedu wuxuu ku imaan karaa iyadoo dadka afka madow afka duubana laga dhameystiro iyo midnimadii Soomaaliya mar labaad qoranto waana qorantaa marka waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliya waan ku garab
istaagannahay waxaan rajaynaynaa halkaas calan inaan qaadano waxaan kaleeto oon halkaan faysa oo aan oga faraynaa waxa weeye hal qof baa wax abuura waxaan rabnaa magacaanagii kuwa dibad jooga iyo kuwa dal jooga xildhibaanada Soomaaliya ayaa ku hadla waxaan rabnaa cadaalad waxaan rabnaa midnimo waxaan rabnaa inaan wadankeena iyo kheyraadka anaga aan qaadanin inayna codkiina iibsanin inaad hal cod yeelataan ummadda Soomaaliya ilaahay idinku leeyahay madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo waxaan u hambaleynayaa Khartoum State هذا ما صنت مامك إني ماما قرنت واحد كنت أنا مساعلك يا ودكتور مركا هذا ما صنت ماما وحاربنا هنا سولو إنه ولكن عوالة بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلام يا دمان ومدى دمان كسوغيب كشي حفل دام بلاران وأنكسو دوينيني حل ديبان قران ولاشين رئيس قراني أبشر وحان كلنا سودو سيكال قاعد يلابا كسودو سيارة واشنطن kusoo dhawow bulshada Soomaaliyeed oo ku jecel kusoo dhawow bulshadii ka daawan jirtay social media markii aad u hadlaysay community-ga Soomaaliyeed iyo dhammaan inta tabarta yar waxaad matashaa kulligana inta halkaan fadhida ayaadna matashaa waxaad nagu matashaa dawladda Soomaaliya federaalka Soomaaliya waxaad nagu matashaa gaar ahaan gobolka aan ka soo jeedo sida hadda meeshada ay ka dhawaajinaysay walaashay Faldis Nafiso baad nagu matashaa galmudug gaar ahaan waxaan u taaganahay dhammaan Soomaaliya baan u taaganahay annagoo dhan maasha Allah tabaarakallah baan ku leenahay waxay kugu soo dhaweynayaan kal furan gacmo furan laab furan qalbi furan bay kugu soo dhaweynayaan waxaan u malayn hadal nooma harin haddaan nahay inta dambe intii horaan naga leysatay hadalka walaalkay hadda wiilkii u dambeeyay oo ka hadlay sida walaalkay Xasan oo kale wuxuu yiri waxaan dhibay calamada anigu waxa u taagan horta calankaas qaranka Soomaaliya u taagan magaaladan calan sidaa iiga yaqaana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo ra'iisul wasaare laga soo ceershay laakiin aan weli madaxweyne noqon baa ku soo dhaweeyay u dhibay calanka wana noo noqday madaxweyne marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa meeqaanka maanta aad joogto mid ka sii sareeyo insha Allah ta'ala inaad gaartiisa Soomaali inteeda kale oo dhan calamadan kala duwan bal sidii lagu soo afjari karo lagu soo afjaro si hal meel aan ugu wada jeebsano oo qoranka iyo qabyaaladuba ay nooga baxaan waa isu lugeyn jirna xaafada haddana balooqyaal kala saaran marka insha Allah ta'ala ilaahay ha naga reebo midaas dawo iyo midnimo iyo muwaafaqo hal meel loo wada jeestana ilaahay hayna gaarsiiyo allahna na siiyo subhanahu wa ta'ala waxaan ku leenahay soo dhawow walaasheen soo dhawow inta dambe oo naga dambayso oo codkayga gaarsiin doonta abaad u tagi doontana dad jecel dalkoodii balse siday ku soo noqdaan la baan soo arkay maxaa wax ka bedeli karnaa insha Allah halkaan awlaad kuma haysaneen annaguna ma joognina wada soo wada aadi lahayn laakiin qof walba wuu cabsanayaa qarax buu ka baqayaa marka bal insha Allah ta'ala qaraxana Allah naga bixiyo dalkana adintii aan waan isugu wada tagna si aan u wada badbaadno insha Allah Allahna na badbaadiyo dhamaantiin waa idin salaamaya sidoo culumadeena walaalkay Sheekh Axmed Nuur iyo dhamaantiin waxaan u mahadcelinayaa hawlwadeenadii intaan iyo hawshaan oo dhan isku soo keenay iyo dadkan ummadaan oo dhan waxaan u mahadcelinayaa gaar ahaan qaranka Soomaaliya kor Allah ka dhigo Soomaaliya midnimo iyo guul baa idinku ogaa dhamaantiin soo dhawow reer هذا ما صنت
مريم دور روح أنا وهرتي كدبنا اللي ما ندا أيان سود وين دونا هذا هو ما صنت هاي مريم مركلة وحنا واحد إنه هو يرو وسود ويو رالي هذا لكن تبغى وينو هذلين ما شاء الله محمد سلوك أيام رأينا سود ويو أصلا دقيقة يلا ما نسي إن شاء الله محمد سلوك السلام عليكم. لما أنت وين سامي؟ كل يوم حمرنا تيجي يقولي والله هذي مركا حد بانتو حنا نسوله مقالة سيدك الشيء ماذا حقدنا نوتي مقالة دينا وعكس واحنا وهعرفني حتى المدير أو هذا كل حاجة تبراشي اللي شاوتي سؤال بهم فري نهاية يسوي ما حقود عنده حافظ استرس أهبي مركا مدبينا برك حتى مقالة دينا كي موتى وكنا كنا قبنا مركا كل يعني إلهي ورطة حيث عقبتيها وكربون لا يرفع عن إلهي وكرسي وعن جعلنا هاي على مدى بدون نقبة الثلث شيء لكن عن باتياشا وقنا على ما قال باتياشا ونقبة ولا شيء وجعلنا هاي وعن ربي أضياء الحين سنجري في الباط سنة كذا ما من الله فهو تاجين كرسي كسر إيجابنا حارنا إلى السيوشك بدشين من يرفع عن لوكيتين وعضو كلا عن داو كربون تاسن جعلنا ولا شيء هو النفسي ولا إلهي نفسي عن برينا وإلهي قبل يوم قبل جيو ما فهمت مركا بدل إهل هذا وضعك عن ناس كله إهل ولي هو نقول دقيق إلى واحد سولو جنتي والله حمرنا ليه إلى هذا سولو جنتي هذا نص عن كرنا مركا قف كستنا عن جعلها هنا سولو عفينه قف كستنا ليش عن جونا ولا شيء مدعينه محمد سلوى ما صرت هاي وأنا حمر كهرباء قف قرن كمثال عيونه مرة لكن وكو قيروه مركا أدى ما صرت وأنا من قرن بسوقه قبل المرة إن شاء الله سهروا وشجني حلما ندان وإنه قد وانت تتكلم عن أركجرني هذا شيء بكرة واجي إنه يوتيوب كسر دعوي لكن ما دام عن حقا عن ميديا والوبتي أنا ما بقول صورة وايد مركا دد عبدول وكمدي هاي والله كل مي أيام كلاش هكذا حلي بانو سكول الجيران واتقنا حلي بان عبد الرحمن والله صوت وتهير شوية وصاحبه هران هين وأنا كي ويري هتان أول ما حيلك نقولها مركا سورسي كان مرينا إنه كميديا كحب بدين مركا هذيك كنا نقاط إن شاء الله حلي بانو هذا مركا عضو ورديسو ورطينا حل كلا قبطي معدنا كل يوم مرينا أيوه إن أن كسر عندهم سدوينتين إن شاء الله تعالى وحن كل واحد منا راعيه مركا عن حفلنا نوع عن كل سووني ما أنت بدو حاجة عجزتي تذكر مهم كمركي هالله خوري كتير جري أو شيء حمود له كميديا سووا لي دينا لا هذا فردي تاسو هم كنتوا سيريسا إيمان رئيسي أتكلم بحاول شرحات كلام مبارك ما دوش حمود له هذا فردي قيمها الله كلا قدرنا إن شاء الله تعالى waxaan rabaa inaan hadda soo dhaweeyo barnaamijka Greece marayna walaalkay iga yar Cabdishukri xagga daadama oo soo soo dhaweey Maam Xamdina ay inoo soo dhaweeyso Maam Cadar baan inoo raali ahaa Maam Cadar waa qofkii aan la caajis ku inay qaadi doona raali ahaa Maam Cadar soo dhaw gacmaha insha Allah isku saar Maam Cadar حالا قبل دول ويلكان أنا قبل يلا أنا يجدا سوري دو كمان ما يقول لك تبع ويلكي قال لك تاي ما شاء الله أنا رياض بيدين سلامي دمانتين إن ما تحوجا واسكعاتي سناي حليم أبرام بركنوا قابل سن رئيس لا يدري إنه حقول لنا سودو ولا لا welcome to Seattle رئيس دو ده مرينا عذير دول كنا سياتل ماشي برشاد دنتهاي dadkana dhuuxiisu adiga ay ku dhawrayeen oo waan ku dhooloolinayna ay soo dhawo maasha Allah anagu waxaan nahay ani xaliimo islaamaha habeenkii gabalka markuu dhacaan magaalada Sidnaa marka hawshageedi waa noo dambaysaa wiiga soo socda marka ku xiga mid bay noo noqonaysaa dumarka
marka raisalna magaceeda waxay la tahay maadaama abwaaniinta aan ka mid ahay kasoo baxay jaamacadda adeeg aan ka mid ahay raisal waa waxay la tahay inay tahay roobka raiska ah marka raisal baa saasaan umalaynaya inay tahay waa raisal roob oo aan teelteel dhulka ugu diin waa tusmiya meel talaadnool la taaban weli toobka xariirta iyo timirta ay u madab eg tahay tallaabadeeda iyo socodkeedu waa tartiib hadalkii kay kugu tiraahdaana waa turaal marka sidaasaan ku fasiray maadaama aan jaamacadda kasoo baxay laaday haddana waxaan kusoo dhaweeyaa xalil saadiya qosolkana waa u baahnayde sheekh axmed nuur waa u baahan tahay waxaa maasha allah aniga cadar saaka aroortan guryaha tagno seexan xal waa soo jeeda waxaa kaloo jooga wallaahi gabdhaha meeshaa fadhiya kulligood xal waa nala soo jeedeen laakiin rais waa ka seexan weyne rais waa laga seexan waayey xaawo shukri waa mahadsanta adaana soo qoortana soo qabtay fartuun qorane faaduba dheer waa dadka qoortana soo qabtay waxaan dhahnay hawsheen dib aan u dhigano calanka soomaaliyeed ow cirshiga ka nuur cirkaad u eg tahay weliga laga cabso kuwii ku caawini lahaa kama cajisan cirkaad u eg tahay rabbiyow laga cabsado saliga nebigiyo dhammahaan suuradaha quraan oo santa aan qaadna sudaan baan ku darahayaa 9 jeer baan ku darayaa subxaan allah samiicul basiirow sahalna muraadana malaa'iga ururay arrintaada hayltiraan malaa'iga ururay arrintaada hayltiraan ifka kulli baan oo qahayrkaagu noqoya abal isha jinnigayn ahaan cawligaba ku arag yasiimada adag albahaab baa lagaga dhigay meeshan annaga caawa qorqabashaan lagu soo kiciya halkaas waa hurdaynaba qaxwa xataa waa naga soo siiye marka rais inaan kaa maqnanaan diidanayn waxaan ku leenahay soo dhawow hawshu waa gelin dambo ciyaartiyadu waa gelin dambo hadda caawa waxyaabihii laga hadli jirna kama hadli karna baraamurada qabiilka sheekh yaa fadhiya maane hawshaas waa geli lahayd ilaa wataan lacagtaba ku qaadano marka caawa intaasaan ku ekeenaynaa waxaan ku leenahay soo dhawow hawshaas waa habeenka dambo 11 noo ahaan doontaa fartuun qoran waxaan ku leeyahay hadda waa taageerbaha iyo taagna kama maqnaan xaawo shukri oo ku garab taaganahay maasha allah aad u masan tahay maamayna ugu yeer cabdulle afkii galiyay cabdulle marka hore ma arkin maamada raalli ahaa walaashay aad uga amarta inaan maamada ugu yeero marka aad baa u mahadsantihiin ballanqaadkii aan qaaday oo ahaa caajisku way ka qaadmi doonaan ma fulay mise waa weli aad baa u mahadsantihiin saa hore u sheegay waxaan rabaa inaan u yeero walaalkii cabdi shukri soo u soo dhaweeya maame xamdi xamdina inoogu soo dhaweysan xildhibaanada cabdiweli inta la yidhahda cabdi shukri soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta intaan maam xamdi soo dhaweey waxaan rabaa inaan kulligiin wada xasuusiyo waxaad nala joogtaa xaawa artist waxay noo haysaa halkaasay fadhidaa waxay haysaa wax aanan hore aan ugu arki jirin soomaalida markii aan imaado xafladahooda oo dadkan kale oo ajnabiga markii aan tago oon ku arki jiray keliya maamadu waxay haysaa farshaxamo cajaa'ib ah kuwa ka mid ah waxaad ku samayn kartaa you can personalize adiga shakhsi ahaan ayaad raisal waxaad ugu reebi kartaa fariin
fariin adiga kaa timid haddii aan cawaalo tusaale usoo qaato cawaalo halkaas intuu tago oo halkaanoo yar oo $5 qaato ayuu fariinta uu rabo inuu raysal gaarsiiyo halkaa ugu qori karaa marka waxaan rajaynayaa kulligiin inaad halkaa tagtaan in qof walba markii aysan xafladda intaysan dhammaan adan cali rooble hadda already waa arkaa waa sii haystaa intaas markii aan uga soo baxo waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo maamo aniga qaali igu ah aniga keliya qaali iguma aha siyaaro oo dhan bay qaali ku tahay maama xamdi maamooyinku iskuma jiraane haddii aysan maama xamdi u kici lahayn communitiga siyaaro dad aad u fara badan ayaa maanta guryo la-aan noqon lahaa waxaan ku faraxsanahay in aan markhaati ka ahaa shaqadii adkayd ee maama xamdi ay gelisay dadkeeda maanta meesha ay joogaan xaqiiqdu waxay tahay waxaan nahay dad shaqo badan laakiin mahadsanis ma dhahno maanta waxaan leenahay aniga iyo dad badan oo ku jiro mahadsanid maama xamdi shaqadaad qabatay siyaaro waa ku og tahay soomaalidana waa ku og tahay soo dhawow sejan ku soo dhaweynaya miyaa in socodkaygi isbedelay dee socodku wuu isbedelayaa qofku waa isbedelayaa laakiin marku hadduu aginku gracefully haddaad u age garayso si xaraga leh haddaad uu gugu kuugu yimaado dee nimcada ilaahay laga barya ayay ka mid tahay xoogaa waxaan rabay inaan justify gareeyo gacantu i qabtay waa mahadsan tahay bayoko aduguna habeen wanaagsan dhammaantiin waxaa caawo farxad iyo rayrayn annaga oo ku hadlayna magaca Seattle aniguna aan isleeyahay dadka ugu waaweyn baad ka mid tahay bulshada u adeega ku soo dhaweynaynaa walaashayo raysal qorane maasha allah magaca laga miskiin ma aha waxaan kuu soo dhaweynaynaa magaalada iyada quruxda badan magaalada iyadu waxay leedahay qurux aan magaalooyinka kale lahayn waa magaalo la yiraahdo Evergreen City la yiraahdo Seattle waxay kaloo caan ku tahay roob badan waxay ku caan ku tahay buurta Rainier la yiraahdana waanu leenahay iyaduna qurux badan aan filayo maadaama waqti badan aad joogayso inaad ku dalxiisto dalxiis ما شاء الله تبارك الله بسم الله الحمد لله وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد إلهي بقى معلق سكوكا يكيني هولكا قروح بدن إنه وقالادي إنان حفلتنا سقروح بدن إنه قلنا ماتو waxaan u mahadcelinayaa community-ga Seattle Washington oo runtii si qurux badan oo maamuus leh ugu soo dhaweeyay gobolkooda iyo degmada ay ka degan yihiin Seattle Washington aan kaloo mahadcelinayaa guddigii sharafta lahaa soo qabanqaabiyay xafladan ka soo shaqeeyay waqti badan geliyay anigoo og inay tahay waqtiyo shaqo ay lahaayeen howlo badan ay lahaayeen ay aniga awgay ay fasaxyo uga qaateen aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahay ajar iyo xasanaad idinka siiyo waan idinku mahadcelinayaa soo dhaweyntiina iyo wanaagga badan oo aan idinka arkay aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan salaamayaa dhammaan bulshaweynta halkaan fadhida
sheekayga sharafta leh Sheekh Axmed Nuur xildhibaanada golaha deegaanka iyo xildhibaanada gobolka iyo xildhibaanada City Council-kaba madaxda kale oo halkan fadhido oo ay ku jiraan madax hore iyo maxaan ku dhahay tiisha ka soo shaqeeya dawladda Soomaaliya professoro aqoon-yahano gabdho iyo rag bale odayaasha dhaqanka waxaan maleynayaa odayaal badan halkan ma fadhiyaan waxaa fadhiya dhalinyarada cuslaatay bahda saxaafadda iyo bahda kaamiramanada waa aad baa u salaamaya qof kasta maskabka iyo muuqaalka ku fadhiya halkan ku salaamaya waxaan ku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacdu salaam farxad bay caawa ii tahay sheekayga Sheekh Axmed Nuur oo runtii aan aad u jeclaa markaan ka arko TV-yada inuu caawa xafladeeda fadhiyood ku maamusteen aad baan ugu faraxsan waxaan rajeynayaa xafladaan inay noqoto xafladaha ugu fiican sababta ah culum waa fadhida aniguna dadka culummada jecel baana markaan runta ii sheego waxaan kaloo aad usii jeclaaday xiriiryahayga xasan oo magaciisa la isii raacay xasan sun maasha allah tabaaraka allah asagana de waa magac fiican oo maasha allah u wataa xambaarsan yahay aad baan ugu mahad celinayaa runtii intaas haddaan uga baxo salaantaydii mar labaa iyo mar saddexaadba soo dhawaada aniguna waa dhowahay runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado America inaan imaado Ohio kasoo bilaabo soo maro Minnesota haddana caawa aan joogo Seattle Washington oo runtii dadkii aan intaa kusoo arkay ilaa Ohio Minnesota ilaa Seattle Washington ay ahaayeen aan isleeyahay dadka aan ku arkay ama aan la kulmay hadday xaflad noqoto iyo hadday kulamo kale gaargaar ay noqotaba aan leeyahay Soomaaliya dadkii samata bixin lahaa hadday aqoon noqoto hadday dad jacayl noqoto hadday wanaag tahay aan arkay caawan ay hor fadhiyaan aad baan ugu faraxsan runtii markaad Soomaaliya joogto ood waddanka ka maqan tahay dadku isma yaqaanaan ama isma sii oga dadku sheekha wuxuu lahaa way qof halkaa wuxuu ka lahaa waxaa professorkaygaas baa wuxuu lahaa dadka qofka darashadiisa inta ama jir la mar ama jabal dhaxaar baa anagu haddaan reer Soomaaliya nahay dhahnaa isagu laakiin wuxuu yidhi jidalo marka runtii aniga xaqiiqiyan dadka jooga Maraykan inta hadda aan arkay oo Soomaalida ah aanan kala saarayn waxaan oran karaa waa Soomaaliya dadkii samata bixin lahaa halkaan joogaan labeentii Soomaaliyeed waxay joogaan waddanka waa ka maqayn dalka waxaan jeclaan lahaa marka anigoo markaad fiirisid budgetka Soomaaliya waxaan ku jiraa guddiga maaliyadda baarlamaanka ku jira budgetka Soomaaliya markaad fiirisid iyo dadka qurbaha jooga oo Soomaaliyeed dhaqaalaha ay Soomaaliya u diraan dadka qurbaha jooga oo Soomaaliyeed dhaqaalaha ay Soomaaliya u diraan baa ka badan marka xaqiiqda idin sheego waxaan ogahay inaad wax badan Soomaaliya ku tartaan hadday tahay xag dhaqaale hadday tahay xag dib u dhis hadday tahay xag waxbarasho wax kasta oo gacanta Soomaaliya looga baahan yahay dadka ama lagu xisaabtamo ama dadka ay ku tashadaan horta waa idinka taa ku tashada laakiin waxaa laydinka rabaa waddanka horey waad u dhisteen haddana inaad si fiican u dhistaan laba jibaartaan ogaataan maadaama aad aqoontii u haysaan maadaama aad u haysaan maxaan ku dhahay naga darjeceshihiin anagoo oo Soomaaliya joogaa naga darjeceshihiin oo markaad dadka la sheekaysato ama aad warsato aad ogaanayso dadka waddanka ka maqan inay ka jeceliin dadka dalka gudihiisa jooga waxaan jeclaan lahaa inaad waddankii dib ugu noqotaan ka shaqaysaan malihi dega soo degani malihi sababtoo dalka ka sheekayn mayno wuxuu yahay hadda laakiin adinkoo dalkiinaan jooga haddana inaad dalka ogaataan ku noqotaan dib u dhiskiisa ka shaqaysaan maxaan ku dhahay horumarkiisa ka shaqaysaan aqoontiisa ka shaqaysaan waa taladayda iyo maaragtay waxyaabaha aan rabo inaan idinku fiiriyo taas haddaan intaas uga baxo
waxaan rabaa inaan xoogaa wadankii aan idinkaga warramo maadaama aan wadankii yimid aniga waa laysoo dhaweeyey ra-iisal laysoo dhawow waxaa ku xigta horta ra-iisal laysii dhawow mar dhow haddii ilaahay marka dhanna sii dhawaada haddana soo dhawaada siina dhawaado waxaan rabaa inaan war ku kala tagno anigana aan xambaarsado anaad waxay kala hartaan horta sidaan ogtihiin wadankeena waqti fara badan buu dowlad la-aan ahaa dowladnimada hadba madaxweyneyaal baa ku kala kacaya kuraasta nin kasta meel buu wadanka soo gaarsiinayay meeshaas wadanka uu soo gaarsiiyey madaxweynihii kaloo markaas soo yimaadaa kasii qabanayay hadba hoggaankeeda meel buu gaarhayay waxaan is leeyahay marka haddii hadda xilliga la joogo maanta haddii wadanka uu helo Soomaali israfta gabdhaha is haysata oo qurba hadday joogto iyo hadday dalka joogtaba isku xirnaata waxaan isleeyahay wadanku hagaagi doona uu hagaagayaa waayo sifaha uu ku socdo hadda ama sifaha sidiisaba hadda muuqata waa sife aan isleeyahay wadanku hore buu socdaa waayo madaxweyne kastoo yimaada wadanku inuu hore u socdo waa rabaa laakiin waxaa qof kasta lugaha ku dhegan dadkiisa annaga hadda ismalihin dalkeena waxa kusoo dira dad shisheeya dhaqaalaha ku bixiya laakiin dadka uu dhibka ku wada waa Soomaali marka caawa maadaama uu sheekha iga fadhiyo waxaan kaga faa'iideysanayaa inaan horta dalka u wada ducayno ilaahay inuu horumar gaarsiiyo wadankeena siduu ahaan jiray hore ilaahay nooga dhigo waana isleenahay haddii annagoo dhan aan isku mid ka noqono wadanku hore buu aadayaa waana hagaagayaa khawaarijtii sida horeba loogu sheegay ama social media baad uga arkaysaan la dagaalan badan waa lagu sameeyey laakiin weli faan wala fara kama qodno waayo waqtigu maalin walba waa sii ragaagaya waa sii dheeraanaya marka faan wala fara kama qodno laakiin madaxweynaha qaranka khayr allaha siiyo asagu waa ka shaqeeyay inuu hawshaas uu culays iska saaro waana iska saaray insha allah waxaan rajaynayaa inay hagaagto hadii ilaahay idmo intaas haddaan ayadana uga baxo markasta markaas saas dhaho sheekhayga khayr allaha siiye xafladda caawa xafladahu maalinba habeenka kale oo iga si farxad badan tahay maalin dhaweedo aan joogay qabri 26 bisha oo wadanka maalinkan magaaladan mid ay ahayd sheekhu wacdinaya marka aaska laga soo kacaarka waxaa isoo kaar sheekh Maxamed magaaladan joogo ilaa iyo xafladaada keen والله بالله انت صوايا ما شاء الله تبارك الله شيخ ما صنتهاي انا قلنا برينا اي من ديتهاي وشقه جرته inaad intaas waqtigaaga galisayna xafladeeda fadhiyaad baan kugu mahadcelinayaa dhammaantiinna waan ku wada mahadcelinayaa waxaan malaynayaa magaca raysal oo aad ay weydiiyey meesha la yiraahdo haaye markaan joogana la weydiiyey على حرارة مرة مرسلة ويدي هذا الشيخ يضطر يوديان هرت مقعس هو يلي ما كل يجي حين يسي اسمه المقع تدخل أدب وريرة كل يوم نربي كلا صوب على شبكة لكن وان هو يدينين مال أو صار كلا في باركية استيده لكن متى قبل مركع المقع يقرأ وميل فقر هي أو مفهوم الحين تدخل على مية كعبة ومكاخذ وكل اللي بحي تفرد فيصل ياكود حوالده كان مركع على قدرة أما مارتي أما العون بصدره فيصل بقى يقرش واجد دم وعمل برتاي وحليل هذا كور بارو وشالة شوبه مقالة يلا هذا هرجسان على بصدره مركع العكتي وقف بصدر سيء وحول بصدر جلاي هذا العكتي بدي تدويل ما عن فيصل ما فقرا نبغى سبب ما عن فيصل الرئيس واحد تسقط قرطان سيبي العكتي يا أسكله فرق هرت مع الرئيس والرئيس الوزراء hooyadii markay magacaasi bixinaysay hadda walaasha fartuun waa fadhida waa iga yar hooyadii markay magacaasi bixinaysay gabadhaada magaceed baa la yiri tir gabadheeda ra'iisul wasaare la dhahaa marka horta magacaygu waa ra'iisul wasaare la igu baxshay laakiin de maadaama aan gabarna ahaa xilna markaas aan dowlad ka ahayn de magaca ra'iisul wasaare magac culus u yahay ra'iisul balada laakiin hooyadii ra'iisul weligeed goorey ma ra'iisul wasaare intraada marka hooyadii ra'iisul wasaare intraada marka horta taasna magacayga saas ogaada oo ra'iisul wasaare oo wasaarihi ka maqan yahay
waxaan rabaa marka caawa waxaa laga dhawaajiyey markastana laga dhawaajiyaa calamada badan oo Soomaaliya ka jira oo sida isteediyada kale calamadii badnaa isteediyada calamada waa ka sii bateeno waxay marayaan qabiilad in loo sameeyo hadda ka hor waxaa dhacday gabar yar oo anigu aan dhalay baa gabar Soomaaliya waxay u keentay waxay joogtay magaalada Ankara marka gabar baa waxay u keentay qaraabanahay calamay soo gaday Soomaaliya ka soo gaday hadiyad bay u keentay marka ragaala calanka Soomaaliya iyo calanka Galmudug iyo calan kale oo hadda lagu yiri waxa samaystay qabiilad ku samaystay dareema baa samaystay dhibaay marka calamadii markii loo keenay gabadheedu waxay tireen habar waa maxay calamada maxay kii Soomaaliya ka gacanta gashay waa 15 sano jirta calankii marka Soomaaliya gacanta gashatay calamada kale waxay tahay labada calan maxay ka tirka waa Galmudug hor xagaa lahaa tiriyada Galmudug ma taqaastay state ka soo jeedaa way hay kana waa calanka reerkiina reer hebel habar waxay tiraahdaa kaas xidigta waxaan haysin iga dhaafo kan meesha geerisay markaas laba joogo waa ka maqlaa hadda waan mid xaafadda magaalada jiray waxay tiri raysal gabadhaadi calamadaana siiyo calankaana waxa iska ka maxay ku tiraay saas waxay tiri hooyo aniga ay dowlad hooyo calankaana aan rabay tiri waa calankaan maaragtay isha kolka waxa kale ma rabay aniga calan ka dheeri calanka Soomaaliya ma rabay tiri waa kana ma rabo qabiil hooyo qabiil wax la yiraahdo ma rabay tiri calanka Soomaaliya labso ka Soomaaliya ma kaas aan rabay marka horta ilmaha yarka iyo dadka waaweyn marka runta laga hadlo ilmaha yar yarkaaba baa hadda muwaadinsan iyo dadka qurbaha jooga marka xaqiiqda ay sheeg laakiin hadda calamada isteediyada ka jira anigu hadda dhow weyn uma arko sababtoo ah wadamada hadda waddanka joogta isteed kasta calan uu leeyahay laakiin calankii qabyaalad laga dhigo uma xun ma ahan isteedkaas aniga hadda baroblaan uma arko laakiin isteedka ka sii baxdo calan reer oo shakhs qabiil ah bal loo baarkay kay calamo lagu gaday marka qof kasta uu arko social media reer hebel kana reer hebel ma nisbaha tirayso joog iyo kiyaati baa qaba marka horta calamadaas dib ah ma ahan for had isteediyadu no problem waxba dib aragay ma arko waa un calan oo iska isteedkaas waa isteediyadu waa iska jiraan meel kasta laakiin isteedka lafkiisa in qabiil lagu saleeyo aan ahayn marka taasuna waa taas annaga kulay waa run waxaana deeqa maradaas hadda aan hoonahayo calankii Soomaaliya kulay waxa la igu weeyday waa jacayl iyo kalgacal iyo calankeeni aan wada ahayn marka kaasana wada deeqa Soomaalinimadana wada deeqa shanta gees oo cadaanka iyo calanka buluuga wana wada deeqa inta isteediyadana kulay intaan noqonayno dowlad xoog leh ha iska jiraan waxba dhib ma leh waxaan rabaa marka walaalayaashay culumadayda aqoon-yahanadayda professoradayda bulshadayda dhan kasta ay maxaan ku dhahay isha ay ku fadhidaba waxaan rabaa marka koowaad iyo marka labaadba inaan idin mahadceliyo waa mahadsan tihiin waxaan rabnaa marka dalkeeni Soomaaliya oo anigu aan ka imid xildhibaankiinii ahay xildhibaan Soomaaliyeed wax ka hooseeya ruubahay أنا حلوان صومالية بانهاي حلوان قرن بانهاي والله أنا بيني دي شيء بالله مركا رطة دي شيء أنا كصومالي ما ذا على هاي وحنشي على هاي إن ضدك سكوبين نقضوا قاقب يقبل وحنا نقوم تراي قاقب يقبل هرب من الدلي أنا كاسر هو هاي يعيد هذا عن السعودية دي لا يجيه أنت سنة وضع أنا وضع ما دام مركا waddankii ka imid adinkuna dalka ka soo maqantiin ana u falahayo waqti badan inaad dalka ka soo maqnaydeen sababta qofka hadda ugu yar soo isleeyahay dhowr iyo 20 sano ka soo maqay waxaan jeclaan lahaa horena aan uga dardaarmay haddana uga dardaarmayaa dalka inaad dib u ogaataan inaan ku halayn dadka hadda jooga dalka dadka jooga maxaa aniga ugu daran kunagu halaynin waxaan rabaa dalka markasta inaad la socotaan update sida hadda update-ka aad u tihiin markaad dadka la sheekaysatid oo aad fiirisid ood aragto boqolkiiba 90 dadka dalka ka maqan iyo qofka dalka jooga xaqiiqeed qofka dalka ka maqan baa update waayo waxa jeclay dalka wali ku jirta soo qaxay oo u soo carray halkaan u yimid soo qaxooti ah ama waddan kale u tagay soo qaxooti ah waxa jeclay dalka wali ku jirta
laakiin annagu lexejecel dalka waa naga yaraad waayo waa dhex taagan marka sidaad dalka lexejecelidiisu idinkugu jirto sii badiya sii laba jibaara dadka intaad waanin kartaa waaniya culummadu sida hadda ay wacdiga markasta u wacdiyaan hasii laba jibaarto aqoon-yahanada iyo barofesoradu cilmiga dhabarka alla u saaray maskaxda alla ugu shubay ha ku soo shubeen dalkii Soomaaliya ganacsatada dhaqaalaha haysata dalka dhaqaalaha dib ha ugu celiyeen ha ka dhiseen daaro dhaadheer ha ka dhiseen warshado ha ka shaqeeyeen hawaaniyeen dadka qof walba waxa way ha yiraahdo war dalkaaga dhalinyarada soo korayso maskaxda laga xaday waan rabnaa inaan u wada duceyno kana shaqeyno annaguna aan ka shaqeyno adinkuna aad ka shaqeysaan sida looga saari lahaa qabyaaladda iyo qabiilka lagu shubay sida looga saari lahaa wadan caybka sida looga saari lahaa ilmaha la khalday oo la leeyahay waa janna tagaysa haddaad waxaa samayso aan ka wada shaqeyno garbaana isqabsano gabcaana isqabsano aanu istaagno horumarka dalkeena aanu istaagno hanaqaadka dalkeena aanu istaagno aan iska dayno markaas dowladda qof kasta oo jooga oo madaxa dad madaxweyne yahay hadduu ra-iisul wasaare yahay hadduu wasiire yahay hadduu xildhibaane yahay waa qof Soomaali haddaan anagu la shaqeyn aanan garab istaagin waxba ma qaban karaan waa marka runta laga hadlo ma qaban karaan wax ay taraysaa ma jirto in maaragtay ii sheeg la fiiriyo marka sii fiirisid Soomaaliya ay wada qofka hebel waa mucaarad tusaale ka soo qaad dowladda hadda joogtaa hal sano iyo bar bay joogtaa saan malayna May bay kulay 2 sano noqonaysaa 2 sano May 15 May August labadeeday u buuxsanaysaa 2 sano marka xukuumadda la dhisay marka dadka marka sii fiirisid hadda tiraahdo hebel maxaa waxaan u sameynaysaa ama dhibka u sameynaysaa qof kasta isaga markaas wax qoseeyo ma wax Soomaaliya qoseeyo waa xil u raadinayo ama uu waayay ama xil loo diiday ama xil laga qaaday taasuna waxba ma noqoto dowlad kasta waayay tan ma kaliya tii kasii xigtay ma waayo qofka haddii lugaha lagu dhawo gabcaha aniga hadda intaan aan joogo oo ra'iisul waa wanaagsan tahay waxba qabatay dhiirigelin bayt marka qofka markasta haddii la garab istaago wax qabadkiisa lagu garab istaago maaragtay ii sheeg waxba u qabanaya laakiin markii qofka lugaha lagu dhawo qofna ma qaban karo qof wax qaban kara ma jiro ka shaqeeya aan kala wada shaqeyno dowladnimadeena horumarkeena dal jacaylkeena waxqabadkeena aan iskaga mid noqono waxaan rabaa marka kolay waxay la tahay berri dadku shaqay wada leeyihiin waqti badanna waa lagu fadhiyey inaan warkayga waa soo gabagabeeyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba reesiyaatal oo u mahadcelinaya wanaagga faraha badan oo quruxda badan sida sharafta leh oo aad ii tusteen kalgacayl fara badan oo aad maaragtay aan idin qaaday sida wanaagga leh aad ii soo dhaweyseen aad baan idinkaga mahadcelinayaa runtii satiyaat aniga markaan soo qiimeeyey gobolada aan soo maray reesiyaatal markaan fiirshay maalin dhaweydna magaalada inta la mariyay halkan waxaa degan wax alaale wixii tijaariin ahaa iyo wax alaale iyo waxaa meelaha ku arki jiray laysoo tustusay waxay rabtaan siyaatal dadkii labeenta ahaa iyo profesoradii iyo aqoon-yahanadii iyo dadkii dee barisabaadkii xataa aqoonta lahaa baa isku yimid baan si marka runtiina waxaa ka arkaysaa qof kastoo stageka soo fuulay iyo in kastoo intii fadhiday iyo inaan horey u arkayba waa dad wada profesoro wada jaamiciyo wada maxaan ku dhahay diin iyo maadi oo ka dhisan dadkii labeenta ahaa barisabaadkii dadkii maaragtay ii sheeg kulli inay meeshaan degan yihiin maasha allah aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa halkaan aan anigana taaganahay adinkana ay soo dhaweyseen intaasaan uga baxayaa warkaygii asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu